السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa halkan deela jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1442 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بانو مهدنقيا مهدنقا نسوكو بكرا وحان دين شيغيا هداد سويدين إنسان قاب كان كسو بحي وحان كسو بحي عفس مدحوينه أيام كسو بحي هل كان وحان ومهد علنيا عد كاستو أو كقيب قادتي سودين تيدا مما قعابي كريا وابدين آد بيو بدينيهين سيجارة وحنا نقوم هاد علنيا ورنتي يعني عوي قولك قدام بيجي دليل قدوميها حسب وطني مدني عبد الرحمن عرة ورنتي كده دالي إن الحرية دي هلا وحنا نلاوين أو يسقون كقيب قاطي قدوميها حسب وعد إنجنير فيصل على الورابع أو يسقون سيدين تدين قدام بيجي كقيب قاطي سيدو كلا وحنا نقوم هاد علنيا مدحونا سومال الآن مسبح عبدي أقبلات أو كأقبلي إن الحرية دي هلا وحن كلو مهد علنيا قف إيو دينع إيو هيئات عد كست أو كقيب قادتي إن المانت حرية دي هلا أو كحما إن حدناضو أو دعيني أو كتامي أو رتشيني يمرون إن الحرية دي هلا وحشت هذا ديو أنا قرني أو دعالة عالم كتشوجة وأنا مقعدو دلاقون أو خيري ويني رتشيني oo garab istaag weyn ii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dad iyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay garabkayga ahaa markasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga markasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan waxa weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf alayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waan ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaay u socono inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna inagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaay aynu halkaa ku soo koobno wax laga yaabaa inaad su'aalo ku taagan yihiin su'aalaydii ku taagnaana inta badan muxuu ahaay waan ka jawaab mana doonayna muxuu ahaay waxa weeye wanaag mooyaan wax kale oo inaga baxaa maanta ma jiro marka ma ku qanacaysaa warkayna saa u qaadataa